السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالين وناكسن dadka maalin u tahay maalin wanaagsan, dadka habeen u tahayna habeen wanaagsan. Kusoo dhawoowa channelka Mrs. Tono. Allahumma salli ala Muhammad. Anigu waxaan ka hadii jaraale ka hadla oo halkan ka sheega waxyaabihii aniga ee naasiba ee caawiyay dhiigkarka xanuunka la yiraahdo. Marka dawooyinka waxaa soo daweeyay halka taala aan kaga maarmay marna inaga harimaayeen dawooyinkeen iyo toonteenu sababtoo ah dariiqadii koobaad ee kan aytooyiga anfacay. Toonteenu waa taa kama marna meesha. maanta maxaan idin wadaa? maanta laba geed baan idin wadaa aad faa'iido badan u leh oo aniga anfacay. marka waxaan jeclaystay walaalahayga sidoo kale xanuunka qabaana inay ka faa'iideystaan baan jeclaaday. waa geedkaas على قد كيردو دومنا لما دادير لويان Soomaali magaciisa wallahi garaa leh hada kuma aqaano haddaanu ahayn geed hawdka ka bixi jiray oo gahayd la oran jiray ninkay garanaya ma aqaano intaasna waa iska fani iska raale hada magaciisa kale andulahan kale ku maqlan salariban malayn in la yiraahdo qofkii magaciisa Soomaali ku yaqaan oo ay soo sheeg kana wad garanaysaan isna geedka kale saladka lagu cuno ee khiyaarka la yiraahdo ma sha Allah tabaarakallah labada geed oo la isku daray oo la shiiday maxay iska dhalaan koobiya lagu daray kaas taas iska dhalaan waa koobiya iyo waxa isku daray labada ka baalka nuskiisi kale xabad dheer bay hayd waa waliba nuska soo haraa badan nuska kale aan shiidan yar muddo inuu ka yar yahay iyo laba ulood oo kaas laba xabadood oo taasan isku daray. marka ma sha Allah tabaarakallah waa geed aad iyo aad u biyo badan. marka waan shiiday ma sha Allah balan isleed nafsaasay noqonayaan ma sha Allah waa nimcada Ilaahay siiyay. sonkor kuma darin sonkor ha ku dareen qofka sideedoo kale sonkor inuu ku daro maaha waana ku darsan kartaa malab qofkii doonaya malab ha ku darsado oo macaanka jecel laakiin caafimaad ahaan ma macaana because dhiigkarka iyo sonkortu waa laba isag fadhiyo waa laba walaalo isag fadhiyo. marka sonkortu qofka ku badato dhiigna uu ku sii kacaya. marka waxaan kula talin lahaa qofka dhiigkarka qaba ha iska ilaaliyo waxa la wixii macaana maxaa la yiraahdaa waxyaabaha dabiiciga ah cuno daqiiqda iyo baastada iyo sonkorta iyo iska yareeyo kulli laga maarmi maayo hala yareeyo hadii aan laga maarmahayna kuwa kale mudow ee brownka iyo waxa lagu bedelo si kalena waan u isticmaalaa dhowr koorsiyood baan u isticmaalaa marwan huuriya oo waxaan ku tistida qofkan haysan xitaa weelka lagu huursado cuntooyinka biyo dabka saaraya shaandho baasha lagu baasta lagu miiro dusha ka saaraya wuu googoynaa wuu yararanayaa wuu ku daboolayaa 2 minute markay baasha isku yar jilcdo waxay noqonayaa wuu ka qaadanayaa waan googooyaa xabadaas oo kale ayaan qaadaa waan jarjaraa way noo diyaar waan jarjaray waa taasaas aad googoynaysaa waa xabad taasa qadadaad maalinta qadadaad raacsanaysaa xabadii toonta hayd kama maqna waa tan iyadana way noo diyaar way noo soo jarjaray waa taas waa xabad toontaasa oo yar maxaa la yiraahdaa ma sha Allah tabaarakallah dawayna halkii kiniinka ay gashaa oo subaxii iska isticmaashaa oo duhurkii aad iska isticmaashaa habeenkii iska isticmaashaa amba dhiigu ku kacsanaado amba yana ku kacsanaan markasta is cabiro dib guriga ku tala baasha la isku cabiraa hadayna ku aan qofkaas awoodi karinna oo maxay tahay qofta dhakhtar baad u doono dadka Soomaaliya jooga doona ma tagaan ba sanadada ma markay soo dhacaan bay dhakhtarka tagaan. marka wayna normal kaaga xabada toonta iska calaashataa amba dhiigu ha ku kacsanaado amba yana ku kacsanaan wayna maalin kasta oo Ilaahay caafimaad qab kugu soo kiciyo wayna xabada toonta subax iska calaashataa qadadaada iyo cashadaada iyo quraacdaada wayna ku dartaa waxba ku yeelimayso caloosha xitaa way ku shubaysaa hadda joogto isticmaashid waa lagu dhuubto qofkii hilibkiisu siyaadahay barurtay ku gubaysaa waa geed inuu ognayo caruurta caanaha loogu daro marka caruurtu hargabto oo kale adigoo weyn oo kale marka hargabto kale xitaa biyo lagu darsadaa sida inta biyo lagu darsadaa la iska cabaa والله ما شاء الله تبارك الله سيابة بدن أي الله استعماله
urteedana ha ka baqanina san horeba soo sheegay markaad cuntaan cunto kale uun ku cuna cunto kale uun geliya caadayguna wada waa inuu qarabkaydi sugnaada caadayguna waa muhiim quraanku waa muhiim maxay tahay inaad subxaana waa qaadir aad quraanka ilaahayna baray la isku akhriya meel kastoo joogtaan baan idin salaamaya walaalahayga qaayaha iyo qiimaha badan leh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.